waxaan u wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba soo dhowaada warbixinteena waxaan diradda ku saaraynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo la jiifa xanuunka COVID-19 iyo xanuuno kale u dheer jiha walba ayaa la sheegay in COVID-19 uu weerar uga qaaday madaxweynaha isla mar ahaantaana uu helay xanuuno kale uu ku dulgabado oo uu ka mid yahay xanuunka neefta ama kolbaariyada ay Soomaalidu u taqaano isla mar ahaantaana naqaska madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku dhagan yahay xamaas sawdo toon iyo sanjabiil ayaa madaxweynaha lagu waalay si uu daryeel iyo caafimaad ugu noqoto maadaama xanuunka COVID-19 uu daawo kale aan lahayn waxaa la soo warinayaa in madaxweynuhu uu markaas inuu ka soo dareemo iyo uusan ka soo rayn lahayn hayeeshe intaan arrimahaas oo dhan ugu dagalin sida caadada noo ahayd waxaanu ka codsanaynaa inaad janaalkeena ku soo biiro aad subscribe saarto gambaleelkana aad furato like-ta iyo share-tuna aad ayay muhiim noogu tahay waad mahadsantihiin aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaya xaalad culus oo halisa tan iyo markuu ka soo laabtay wadanka Isuutaga Imaaraadka Carabta inkastoo xanuunka COVID-19 uu ku dhacay isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta lagana helay haddana lagu karantiilay isla dalkaasi haddana markii madaxweynaha uu dalkiisa ku soo laabtay ayaa waxaa la sheegay in la jiifiyay qolkiisa markaasi hurdada waxaana tan iyo xilligaasi halkaasi kula sugan dhaqaatiir caalami ah oo meelo kala duwan laga keenay kuwaas oo madaxweynaha xaalkiisa ka warhaynaya isla mar ahaantaana daawo iyo daryeel halkaasi ugu sameynaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in xanuunkaasi uu nuglaaday isla mar ahaantaana xanuunku ka tambadiyay difaaciisa ayaa hoos u dhacay taasoo keentay in xanuunka COVID-19 uu weerar jiha walba ay ku qaada madaxweynaha kadibna madaxweynuhu uu daandaan halkaasi ka muujiyo xanuunka ayaa la sheegay in uu baalaha ka rifay madaxweynaha isla mar ahaantaana madaxweynuhu uu oomateed ka qaadan waayay isla mar ahaantaana mararka qaybtood sonda wax lagu siinayo waxaana la soo warinayaa in madaxweynaha saacadihii iyo xilliyadii ugu dambeeyay iyo labadii bari ugu dambeysay markaasi uu neefta qabatay maadaama sida la sheegay uu qaba xanuunka la yiraahdo Soomaalidu u taqaano ee kalba-aariyada isla mar ahaantaana neefta iyo ay loo yaqaano xanuunkaas oo halis ku ah qofka coronavirus ku dhacana la sheegay si uga kaca inay aad u adag tahay waxaa la soo warinayaa madaxweynuhu in xanuunkaas markii uu hayay sidoo kalena la soo warinayo in xanuunka sokorta laftirkiisa madaxweynaha uusan ka marnayn dhiikarna looga shakinayo maadaama uu yahay qof siyaasadda aad ugu soo jiray muddo dheer walwalkiisa iyo ka shaqayntiisuna ay badan tahay isla mar ahaantaana dadka caynkaas oo kale la sheego in ay aad ugu badan yihiin xanuunada sonkorta iyo dhiikarka maadaama ay iska fadhiyaan siyaasad iyo maskax fakaraysana ay caan ku yihiin iyo arrimo kale taasoo keenta in walwalkaasi uu ku abuurmo xanuunada sonkorta iyo dhiikarka waxaana la sheegay in xanuunka neeftana uu qabay sidaas darteedna COVID-19 markii uu ku dhacay madaxweynaha waxaa la sheegay in xaaladdu ay ku adkaatay welibana qandho xumad madax xanuun neefta oo ku noqonaysa iyo arrimo kale ayaa isugu darsamay dhaqaatiir kala duwan oo isbitaalada ugu waaweyn Muqdisho isbitaalka liidada dugaan laga soo waday ayaa madaxweynaha loo keenay si ay u daryeelaan xaaladda madaxweynuhu waa mid culus wararka qaar ayaa waxay sheegayaan haddii uu ka soo horeyn waayo in loo qaadi doono wadamo kala duwan oo caalamka hay-adda arrinta dhibaatadu ka taagan tahay ah in dunidu aysan xanuunkaani ogolayn oo uu soo karay dadkeedina uu baabi'iyay isla mar ahaantaana qofka hogaamiye hadduu yahay hadduu shacab yahayba dal kale haddii laga keeno oo wax laga qaban waayo dabcan oo dalkiisii in laga soo qaado oo dal kale caafimaad lagu ogolaado lama ogola talabaadoo jirta waxay tahay xanuunkani ilaa iyo iminka daawo looma helin marka laga yimaado markaasi ka hortag iyo irbadaha la qaata mooye taasuna iyana waa sun kale oo madaxweynaha halis sii gelinaysa xaaladiisa waxaana haatan ay xaal isugu noqotay in madaxweynaha xarunta madaxtooyada lagu daryeelo isla mar ahaantaana daawooyinka daawo dhaqmeedda ah Soomaalidu u taqaano ayaa madaxweynaha la sheegay in la siinayo saacadihii ugu dambeeyay sida toonta iyo xamaas sawdada iyo welibana sanjabiil iyo dawooyin kale taas oo la sheegay in loogu talagalay in madaxweynaha loogu daryeelo xaaladiisa caafimaad maadaama uu aad u liito madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay oo Imaaraadka tagay lagu tuumay in xanuunkaasi uu ku dhacay iyo inuu Israa'iil aaday warar labada dhinac kala sheegayo oo isku feeriyaacayo oo welibana aad ugu baahay warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa soo baxay hayeeshee
madaxtooyada arrintaasi way qarisay. Madaxweynuhu afka xiran isla mar ahaantaana face maskiga afka lagu xirta qaba isaga iyo waftigii la socday si ka duwan sidii horey madaxdii kale iyo markay safraan loogu yaqaanay ayaa ka soo degay diyaarad garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho. Markii la arkay sawirada iyo muuqaalada madaxweynuhu afka xiran yahay oo diyaaradda ka soo degaya ayaa dadka tuhun iyo shaki kaasi raacay, taasoo sii cadaysay sida xaalka madaxweynuhu u liito. Waxa xilligaasi ka dambeeyay madaxweynuhu waxa uu iska jibsaday madaxtooyada, kadibna madaxtooyada Soomaaliya oo aad markaas ugu xallin weeday wararka hanta ah sheegaya in madaxweynuhu uu xanuunsaday ee suuqa soo galay ayaa isagana waxa uu bilaabay isla markiiba in uu madaxweynaha dabcan ay warkiisa sheegaan iyo xaaladiisa caafimaad ayagoo bulshada Soomaaliyeed u sheegay madaxweynaha ay soo naayeen madaxweynuhu aad u liito. tan iyo xilligaas madaxweynuhu waxa uu ka socday madaxtooyada wax kulama lama qaadan cidna, kulamadii baarlamaanka ma tegin, xuskii 2020 ee bisha June ma tegin, sidoo kalena kulamo kala duwan ma qaadan. waxaana haatan la soo sheegaya in xaaladda madaxtooyaduna aysan weli ka hadal xaaladda madaxweynaha, iyadoo dadka xaalkiisa aad ugu dhandalool ay soo sheegayaan in xaaladda madaxweynuhu ay tahay mid aad u liidata oo halisteeda leh, isla mar ahaantaana u baahan sida ugu dhaqsiyaha badani wax looga qabto, maadaama markaasi wadanka aan wax looga qaban karin dal kale in loo qaado ayaa dadka qaybsad ku talinaya. kuwa kalena waxay leeyihiin waxba yaan dal kale lagu ordine, shacabka ha looga soo duceeyay dadka jooga, isla mar ahaantaana culimo badan oo quraan saarta madaxweynaha loo keeno, dawa dhaqameedana ha loo badiyo iyo daryeelida kaleeto si markaasi madaxweynaha uu caafimaad u helo. waa sida ay leeyihiin dadkaasi. waad mahadsantihiin daawadayaal, wararkan iyo kuwa kaleba si aad mar walba noola socotaan waad nooga heshaan. waxaan kaa codsanayaa janaalkeena kusoo biirto Dhextaal TV oo aad subscribe saarato, gambaleelka furato, like-ta iyo share-tuna muhiim ayay noo tahay. welibana like-tu aad ayaan u xiisaynaynaa oo welibana hana dhaafine noo saaraan ku leenahay lacag ma ahane. waad mahadsantihiin.